بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي dhegaystayaal daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan waa barnaamijka loogu magac daray murtimaal barnaamijkaasi waxa uu ku bixi doonaa oo laga daawan doonaa channelkaygan oo aad marka hore subscribe gareyn doonto kabacdina aad like saaraso wixii intaa ka dambeeya muxuu hadaba ku saabsan yahay barnaamijkani waa mid lagu soo bandhigayo haldoorka Soomaalida meel kasta oo ay joogaan taariikhdooda fankooga saxaafadooda ganacsigooga barnaamijkaasi waxa uu diiradda saari doonaa qof walba halka uu ka soo bilaabay hawsha uu qabtay maantana waxaynu ku horeysiin doonaa oo toddobaadadan socon doona saxafiyiinta ka hawlgara BBC laanta afka Soomaaliga waxaynu ku horeysiin doonaa oo barnaamijkan daah fur u noqon doona gabadha lagu magacaabo Kawsar Maxamed oo loo yaqaano Kawsar Indo Kawsar waxa ay ka mid tahay hablaha xishoodka badan ee ka hadla laanta afka Soomaaliga haddaba haddii aynu koobno taariikhdeeda waxa ay ku dhalatay waxna ku baratay magaalada Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya waxay jaamacadda ka dhigatay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya saxaafadda waxay ku jirtaa ku dhawaad 4 sano waxayna la soo shaqaysay raadiyayaal iyo idaacado maxalli ah oo ka hawlgala dalka Kenya muddo sanad ah ayay BBC-da waxa ay ula joogtay si madax bannaan waxayna hadda ka mid noqotay shaqaalaha BBC-da ee ay sanadka cusub waxa way aynu niraano waliba sanadka 2019 ay qaadatay runtii waxaan ka soo gudbay caqabada badan ayay tiri oo aan aaminsanahay qof walba oo dadaala inuu gaarayo maanta waa saxafiyad meel kasta laga wada yaqaano waa ayna ku faraxsan tahay hawsha ay qabanayso haddaba waxaynu halkan ku daawan doonaa bal marka ay barnaamijka sii deynayso muuqaalkeeda guud iyo codkeeda sida uu yahay dunida iyo maanta ay dhageysan doontaan anigoo ah Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayaan idinla socodsiin doona qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamid ah dad badan oo ka barakacay fatahaada ka dhacday magaalada Beledweyne degmada Doolowna markii ugu horeysay muddo dheer kadib waxa biyo galay xaafadaha magaaladaasi wasiir ka tirsan Puntland oo sheegay in astaamaha cudurka COVID-19 uu isku arkay markii uu ka qayb galay gurmadkii Qardho qodobadaas iyo kuwa kale ay dhageysan doontaan idinkuna ra'yigiina halka hoose noogu reeba السلام عليكم رمضان مبارك دمانتينبا meel kasto joogtaan anigoo ah Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayaa idin soo jeedin doona barnaamijkii dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah uu yaraan 10 qof oo daadad ugu dhintay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya cabsi laga qabo in fatahaada ay gaarto Soomaaliya isli oo maanta laga bixi karin lana gali karin wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa Djibouti-na xaafado kamid ah magaalada Djibouti waxa laga bilaabay baaritaano la xiriira cudurka COVID-19 shanta iyo barka iyo 6 maqribnimo inta u dhaxaysana waxaad dhageysan doontaan barnaamijkeena salaamaha fariimihiina halka noogu reeba si aan u gudbino haddaba macmiil haddii aad daawatay barnaamijkan oo aanad marka hore subscribe garay channelkan ku dhufo calaamadda subscribe kabacdina like dheh kabacdi waxaad gaadhsiisaa asxaabtaada ehelkaaga iyo qaraabadaada si ay u daawadaan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan gelino